aad nin wax u bartay waay naliila hal su'aalan ku weydiinaa saaxiibow taxawus meeshan it's a private but I'm trying to ask you haddaadan rabin maka jawaabi kartid ayantan kastoo ixtiraaman bartay ogta qurbaha le waay walaalkay waxaan ku weydiinaa new hiv weydaa tahay horta daacad markay timaado fanka waa blockbuster ani agteyda ka tahay waqtiga ani ku daawanayay one way ilaa hadda ani waa kula socdaa yaa ku soo diray ma fahantay walaalow maxaa dhacay ayantan erey kuguma yaro bid kuguma yaro waxaa joogta one of the development country wadamada ugu horumarsan weliba heesahaad kusoo qaaday yurub waaba ka saameyn badan yahay heesii africa ayaa taa maxaa u gaabaysay lilo maxaa dhacay ii sheeg basaaxiib bro horta ma wixii kaftar mase wixii reality maxaa isbedelay realityga haddii laga hadlo saaxiibow sometimes noloshaada markay private tahay iyo noloshaada markay public tahay isku mid maahan noloshayda markay private tahay ani waxaa arka inaa haysto like farxad zaa'id dheeraad inaa haysto ma fahantay like adartan isbitaalka dhihina inaa jimiska aadid danaha kala shaqooyinkaa iska qabsatid private inaa xabada kusoo jiisatid iska shukaansatid noloshu aaday u macaantaha ma fahantay laakiin marka public aad tahay inkastoo aa weligii alihii magacii hoosiga harin because magacii masiibaba maalin baxanaan lahay waxay ku xun tahay maalin kasta xafladan joog maalin kasta meeshan lagaa casuuma kuwan israaca studio san sameey so somehow markaa yurub imaaday africa fursadihii ka jiray yurub fursadaha ka jiraa ka badan so haddii waxaan fikiray marka fursadahan yurub ka jira haddaa ka faa'iideysan waayo maanta intaa xoogga leeyahay adigana berito waxaa arkaysaa adigoo konton jir ah oo laleeyahay keliya xanuunaysa lacagaa loo aruuriyo ma fahanti marka liilow adiga fanka opportunity ugu jirta miya opportunity daasho ka baxday markaa sheega ani fanka baahiya ugu jiray africa markaa joogo brada waa baahnaa si fiican laakiinse maanta jeebkeyga alxamdulilah jeebkeyga aad u qurxoon yahay maanta ma fahanti si fiican jeebkeyga aad u qurxoon yahay safinka aad u qurxoon yahay maanta haddii la dhaho warniyo ayay wax ka qaldan yihiin waxa la male kali cusub ha loo geliyo maasha allah hadda waxaa leedahay miya jeebkan ka qoslooya alxamdulilah rabbil caalamiin bro wallahi billahi ma fiicna waxyaabaha gabal inaa public ka dhahdid but alxamdulilah rabbil caalamiin haddaa isku fiiriyo 3 years back 4 years back iyo today two different people are kala ahay hadda waxaa taaginta anoo waxayst ilaahay isku diri kari maya haddana shalay haddana waxaa arki jira bro wax la yaaba arki jira fiiriya xafladaa waxay ku qabtay Sweden hadda ka hor 2020 xafladaa waxay ku qabtay Gothenburg okay that night xafladaas lacagtiiga soo gashay marka lacagii DJ-ga lacagtiisa siiyey kameramayaasha security-ga wax walba marka siiyey waxa ii soo hartay 18,000 euro ay soo hartay si fiican laakiinse laba beri ka bacdi hal shilin kama heenin meel ay ka baxda kala aday sheeg horta baraka male ma ila aragti saaw lacagta meediyaha laga tacbo laakiinse maanta waxaa arkaa adiga bishii ugu yaraan 5,000 to 6,000 oo nadiif way soo gashaa laakiinse waxaa arkaa war anigu xitaa 1,000 ama 2,000 isticmaalin lahaa bishii kale lagu gaaraanayo lilo maxaa sababayo makase waxaa sababayo qofka markuu shaqeeyo fiiri aniga hadda wadankan sanadka ugu horeeyo oo wadankan ay imaanaya 3 sanaan joogaa ma shaqayn jirin sanadka ugu horeeya sanadka ugu horeeya ma shaqayn jirin markaan shaqaynayay iyo markaanan shaqaynaynin waxaa aad lacag u samayn jiray markaanan shaqaynaynin reality markii laga hadlayaa cause markaa soo kacdo noloshaada dhan waxay tahay youtube muuqaal duub tiktok muuqaal duub live gal dhalinyarta waqti la qaado you know imagine qof 24 hours waqti geliyay youtube iyo tiktok iyo media iyo qof subaxii shaqo aaday soo laabtay kee lacag badan saaxiibow tugi aan ku dhameeyo qofka kana badan maano wallahi by the time in aan dad u shaqeeya aan bartay oo weli lee amra aan bartay I feel peace wallahi hadda waxaa arkaysaa 6 beri anoo youtube wax duubeynin I'm so happy qanaacada iyo iimaankaaba kuu soo laabanaya walaalo markaa iska shaqaysid wallahi that's true saxiib waxaa kuu sheegaa laakiin dad badan iga xanaaqaya hadalkaa ku dhahay ma fahanti ma wax ka xanaaqaya male you know the most you know hadartan haddii la dhaho celebrity only the good people celebrity maahan
but anybody who has more than 100,000 followers than celebrity because 100,000 are kutaqaana, okay? The most Somali celebrities are useless, bro. They're good for nothing. runta ku sheega dhageysaya. Haddaad fiirisid nolosha adduunkana lama socdaan, toy aakhirana lama socdaan, toodiina lama socdaan, dantoodan ma yaqaanin. Reality ku sheega, okay? waxaa arkaysaa qof celebrity meeloo fadhiya first of all ceeru suga million followers iyo qabiiluu ku faanaa xaflad kasta oo iyadoo laga casuumin suud beenoo isku soo xiraa sidii nin wax haysta meel kastuu taagan yahay and then somehow markaa fikirtid oo qofkan aa fiirisid waxaa is leedahay ninkaan nolol fiican uu ku nool yahay ninkaan noloshiisa rabaani ya waddankiiuu soo tahriibaa waddan islaameed oo imaanaa waddankii islaameed markuu imaado noloshiisoo baxarka soo geliyey familkiisii wax ka sugayaan wax walba mu fiirinayo opportunitygiisa kama faa'iidaysanayo soo ordayo inta markuu imaado social media soo dhex fadhiisanaa asagoo ama qabiilo inuu wax ku hela rabaa ama asagoo ceer qaadanaya suud been oo isku taagaya and then back home dadkii joogay markay arkaan qofkan waxay leeyihiin oh my god way u kala kacday this guy gaari qataruu ku fadhiya gaarigu ku fadhiya xitaa qofaa wata ficiis geesku kaloo ka fadhiya ma fahanti so waa la yaabaa so as a Somali celebrity maadaama adiga Somali celebrity tahay aniguna Somali celebrity ahay maxaa dhalinteena camal kula hadli karnaa u sheegi karnaa dhihi karnaa yo what the fuck's wrong with you guys waxaan u sheegi karnaa liil horta qofka bini'aadanka ah gaalada waxay dhahaan the truth shall set you free runta xorey kaa dhigtaa mugto nimayow media markaa ku jirtid dhalinyarta mediaha ku jira liil baliil aniga waxaan u malaynaa adi iyo aniga iyo dad yaraaba jiroba dhalinyarta oo social media ah runtoo dadka u sheegay aniga hadda kahor kelibaan duubiyaa jirto oo aan dhahayo I work in a train station ka shaqeeya inta dad caan ah luuqa ii soo gasho kelmaddaa ka xanaaqdima malay kartid wallaahi alcadiim wax kaftamaya ma ahan maxaa uga hadlaysaa privacygaada annagaa meesha nugu bahdilos aniga bahdil maxay tahay inaa shaqaysma bahdil waxaa fiiri lil balil qofka inuu shaqeeya bahdil loo arkaa laakiin reere inuu caayo oo habeenkii income uusan asaga lahayn ku xisaabtamana is a kind of success waa guulo u arkaa marka social media is a factor ab wallahi mararka qaar fiiri waxaa arkaysaa nin 1.6 million waxaan dhahay 1.6 million ay ugu xiran bangigeygana markaan fiiriyey $15,000 ma ku jirtaan dhahay marka 1.5 million kaas maxay ii sheegaysaan dhahay hadday income igu soo ziyaadinayn keliya they are friends aniga iyaga igwalaanaanay iyagana wax ma haystaan anna wax ma haysan waa isla sheekaysanoo dhaha faqiirin isku nafisayaanaani isn't it 1.5 million ka ay haysatid haddaa af ingiriisku hadli lahayd maanta $1.5 million waa haysa lahayd but the reason Somali ku hadlaysid Firi let me explain to you one thing